in uu hoos u dhac weyn ku yimid kalsoonida ay shacabku ku qabaan dawladda Soomaaliya. shir arintaasi looga hadlayay ayaa maanta Muqdisho ka dhacay iyadoo warbixinna laga soo saaray. arintaasi waxaa la socday wariyahayga Axmed Maxamed Ibraahim. Axmed, warbixintu maxay sheegaysaa xiriirka u dhaxeeya dawladda iyo shacabka, maxaa laga yiri? waa maasantahay in ciidiido warbixintan waxaa sameeyay in hay'adaha la yiraahdo Foresight Africa iyo waliba hay'ad la yiraahdo Ipsos oo Africa xarun ku leh qayb ka mid ah. warbixintan waxaa laga sameeyay dhowr gobol oo ka mid ah gobolka Banaadir, gobolka Bay, Galgaduud, Hiiraan, Jubbada Hoose iyo Nugaal. shacabka jooga warbixinta laga soo ururiyay waxaana la weydiinay kalsooni intee ay ku qabaan madaxdooda. sidoo kale waxaa laga eegay warbixinta caafimaadka, dhaqaalaha iyo amniga. marka aan amniga aan imaano gobolada hadda la sameeyay warbixinta laga soo sameeyay waxaa noqday gobolka amnihan ugu liito gobolka Hiiraan oo 16% oo noqday kalsoonida lagu qabo amniga. waxaa laba soo noqday gobolka Banaadir 35% noqday ka maxalliga kaanta labaad ka galay. gobolka ugu amni fiican waxaa noqday gobolka Galgaduud oo keenay tira ahaan 94%. gobolka Nugaal ka mid ah kaalinta labaad waxaa galay 88 keenay 100%. dhaqaalaha waxaa la sheegay in waxa yiraahdaa gobolka Jubbada Hoose iyo Nugaal ay kaalinta koowaad isla galeen oo 52% ay keeneen. laba waxaa noqday gobolka Bay 35% keenay dhaqaalaha gobolada ugu fiican hadda warbixinta laga sameeyay. caqabadaha dawladda ka haysto dawladda Soomaaliya caqabadaha haysta ayaa la soo bandhigay. waxaa lagu sheegay caqabada ugu weyn inay tahay amniga iyo argagixisada weerarada ay qaadaan oo noqday 80%. sidoo kale waxaa noqday employmentiga dadka shaqaa haysan shaqo la'aanta haysto 100% waxaa noqotay 75 shacabka ku nool waxa yiraahdaa in gobolada hadda laga soo sameeyay warbixintan. sidoo kale waxaa ka mid ah caafimaadka oo liita, waxaa ka mid ah dagaalada qabiilada isku dagaalaya ka mid ah warbixinta lagu sheegay caqabadaha dawladda imanka haysto.